baaq nabadeed iyo dhambaal tacsiya iyo gogol nabadeed ayay odayaasha iyo waxgarad ka soo jeeda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool u direen beesha Muuse Carre. Odayaashan ayaa sheegay inay dhigeen gogol nabadeed gudaha magaalada Laascaanood uguna baaqayaan beesha Muuse Carre inay yimaadaan gogoshaasi nabadeed. Waxayna sheegeen odayaashaasi inay si weyn uga xun yihiin ugana tacsiyadeynayaan dhacdo ka dhacday deegaan u dhow magaalada Arbogays oo uu qof ku dhintay. Waxayna baaqaasi nabadeed iyo tacsidaasi iyo gogosha nabadeed ay dhigeen ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee odayaashii kulankaasi ka soo qayb galay. waxaynu furanaynaa shirkan aynu isugu nimi oo daaran gogol nabadeed oo ay dhigayso beesha Nuur Axmed oo loo dhigayo Muuse Carre Xasan Muuse dhacdadii ka dhacday soonihii Arbogayseed oo marxuun uu ku dhintay Cali Xasan Caynaanshe ayaa gogol nabadeed beesha Nuur Axmed iyo guurtideeda iyo waxgaradkeeda iyo cuqaasheedu ay ka dhigayaan gogol nabadeed iyo tacsi waxaan ku soo dhaweynayaa odayaashii ugu horeeyo gudoomiyihii nabadeynta محمد عبد حسين كسر دو بسم الله الحمد لله بان وما حد علينا يا هرت رنتي دتك يسويمي قد يدنا واسيدا أو شيئين عبد العزيز إن شاء الله وريركي نور أحمد ولاسعانود سويمي كان هلا يا أما كجد بينا يا رأي جوجي العددي علي حسن عينانشة muddo hadda laga joogo biliyo min kusimaad dhacday insha Allah anigu furitaanka baan u istaagay odayaashii fariinta gudbin lahaana waa inagu xigayaan marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa insha Allah khayr badanna waa isku ognahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rahmaan rahiim sida loo sheegay beesha Muuse Carre ee uu ka gooriyooday maxruunkii ku dhintay sida xaq darrada ahaa oo xaqiiqatan in ka wada geeriyooday oo ahaa markii la eego nin Nuur Axmed oo reer Taleexan ahaa geeridiisii baanu ka tacsiyeynaynaa xaq darrada ahayd waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan annaga iyo idinkaba Allah inaga siiyo isagana jannadii Allah ka waraabiyo ilaahay idinkii way ahayd hadda ka hor inaanu idin yeedhno gogoshuna mudaytiil tacsiibayno ku wada jiray oo annaguna xaggan waa laga murugaysnaa ninka geeridiisa aad iyo aad baa looga murugaysnaa waan la socotaan oo rag baa u geeriyooday naxdintii waad la socotaan marka xagga iyo xaggaba murugadaas hadda ka hor lagu jiray oo waynu ka wada murugaysneen maanta ay noqotay ilaahay qadaray inaanu idin baaqno oo idinku yeedhno gogol nabadeed oo sharaf leh oo idinku aad isteerinka u haysaan xaajadeeda idinkana dambaynayno wixii aad ku go'aamisaan iyadoo aanu ku kalsoonahay beesha muxuu ahaa marxuunkaas uu ka geeriyooday inaanu aad isu afgaranayno si wanaagsan isu afgaranayno waa malaynaynaa waxaan rajaynaynaa maanta hadalka iyagu wuxuu ku egyahay ama ku saabsan yahay ama uu ku egyahay inaynu isu nibaadno oo halkan gogol sharaf leh aanu idin dhigno haddaanu nahay beesha Nuur Axmed ee reer Taleex beesha muxuu ahaa Muuse Carre markii muxuu ahaa Xasan Muuse gaar ahaan gogoshaas idin taala gobolka Sool waxaanu idinku muxuu rajaynaynaa inaad noogu imanaysaan waxaan rajaynaynaa haddaynu isu nimaadno inaanu si fiican aynu isu afgaranayno waliba aanu idin raali gelinayno oo aynaan qaladka meesha ka dhacay uma sinin annaga iska leh wiilkayagii baanu dilay wiilkiinina waa dilay annagu nagu baxay marka ka xaajoon mayno sidan iyo sidan ay ahaydee waxaanu jecelahay inaanu idinkaga dambayno taladeeda ogolaanana oo yeelo wixii idinku aad raalli ku noqon kartaan ilow annagoo reerka aanu aaminsanahay inaanu isaga sokayno habar yoonista kale oo ay Muuse Carre tahay niman reer Taleexa waad ogtihiin sida aawadeed
geli mayno hadda boorigaraan kale oo fara badan inaad noo imanaysaanna waa rajaynaynaa waxaanu idin leenahay halkan gogol baa idin taal ninka aynu kaga xaajoonayno Laascaanood inaad imanaysaanna waa rajaynaynaa raalli baadna ka ahanaysaan raagsiinyaha oo sidaan horeba u sheegay dad tacsibaynu kulligeen ku wada jiray sida awadeed waxaanu idinka sugaynaa si degdeg ah oo sharaf leh oo xushmad leh oo islaamnimo leh oo kalgacayl leh oo xididnimo leh oo abtinimo leh oo qaraabanimo leh oo deegaan ahaan leh oo wixii ugu horeeyay maanta ila dhaxmaray eeyada yihiin inaad noogu imanaysaan si degdeg ah gogoshiina way idin taallaa waxaan leenahay Allah idin nabad keeno annagana Allah nagu guuleeyo muxuu ahaa waxa aad noola imanaysaan inaanu sharaf idinkaga qaabilo sida loo sheegay oo odayaashii hore ay u sheegeen waxaanu halka isugu nimi ugu horeyn awalan waxaanu isugu nimi tacsi tiiraanyale oo aanu ka tacsiyeynayno marxuumka ilaahay waxaanu u baryeynaa oo ilaahay u weydiinaynaa inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabsho waxa weeyaan annagana waxaanu tacsi u diraynaa beeshii uu ka dhintay qaraabihii uu ka dhintay dadkii uu ka dhintay oo eheladayada ahaa dadkaas waa eheladayada sidii hore loo sheegay ninkaas waa naga wada dhintay waa ka xunnahay waxaanu leenahay belo kulama tashato waxaanu leenahay gacalow xididow darisow waxaanu leenahay beladu kulama tashato laakiin khayrku waa kula tashadaa waxa weeyaan haddii wax nala weydiinayo taasu ma dhacdeen ma ay dhacdeen waxaan wax garanayn baa sameeyey waxaan leenahay khayrku waa kula tashadaa khayrku waa ka aanu hadda gogosha ku dhignay waa kaad wanaagga ku samayseen waa kaad intaa nagu sugayseen waa kaanu hadda idinka filayno waxa weeye waxaanu idin dhignay gogol nabadeed gogol wada xaajood baanu idin dhignay Laascaanood baanu idin dhignay waxaanu idinka rajaynaynaa in aad noogu timaadaan ilaahayna ha idin fududeeyo wixii dhacay waa ka xunnahay waa ka qoomameynaynaa tiiraan yaanu ka muujinaynaa hadalku waa inuu sumad leeyahay cidda gogosha aanu u dhignay ee arrintaasu naga gaadhay ee aanu wanaaggooda doonaynaa waa guud ahaan Muuse Carre gaar ahaanna waa Xasan Muuse alxamdulilah ilaahay baa mahadle noo suuro geliyey maanta reerkaanu ehelka nahay dhibkii gaadhay inaanu maalka halka ka tacsiyeyno aanu xidhiidhna ka yeelano ilaah baan ugu mahadnaqaynaa intaa markaa ka gudbo waxaanu tacsiyeynaynaa reer qoyskii uu ka geeriyooday Cali Xasan Caynaanshe iyo ehelka guudba waanu ka tacsiyeynaynaa waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto gacanka xaq dareen baa dishay ilaahay jannadii ha geeyo ehelkii uu ka dhintayna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo islaamka oo dhanba intaa markaan ka gudbo arrintaasi dee way dhacday sida la sheegay khalad bay ku dhacday kollayna filan ma dhaafto waqtigeeda laakiin dee dadaan cidna la tashan oo maanta dee waayo reeg lagu yahay dadka noocaas inay meel walba joogaan baa arrintaa dhigay aad iyo aad baanu arrintaa uga qoomameynaynaa waxaan u gudbinaynaa salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradkaba waa salaamaynaa marka hore waan salaamayaa marka xitaa waxaanu ka codsanaynaa sidaa la sheegay gogol baa u taalla Laascaanood wixii dhacayna dee dad islaam aynu nahado waynu garanaynaa inaan waxba ka soo noqonayn laakiin waxaynu mudannahay inaynu ka xaajoonno sidaa darteed gogol baa Laascaanood idiin taalla aad iyo aadna waanu danaynaa annagu arrintaa inaad aad mataqaanaa na aqbashaan waxaanu idinka rajaynaynaa inaad timaadaan annana wixii nagu aadan ama waxaanu xaq u leenahay insha allah waa aanu gudan doonaa intaasaan anigu kaga baxayaa bismillaahi wabilaahi towfiiq marka hore waxaan salaamayaa golahan iyo guurtida aynu baaqa u dareennay Muuse Carre labadaba salaan diiran baan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad meesha waxa weeye waxaanu soo gudbinaynaa xigtooy waa qoomamo
iyo tacsi haba daahdo waqti beedheer ha qaadato waa qoomamo iyo tacsi iyo gogol nabadeed waxaan rajaynaynaa inaad naga ajiibtaan ehelnimada iyo islaamnimada iyo dadka isxigistiisa iyo dhibaatada macnaha oo in kolley cid kastaaba ay wanaag kaga jawaabto ay macnaha ku habboon tahay wixii dhacayna hadda macnaha inooma qaybsana waxa weeye waxaanu hadda macnaha xumaanu aanu ka gelaynaana ma jirtee wanaag baanu ka gelaynaa xigtanimaanu macnaha kaga gelaynaa waa ka qoomamaynayna aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu idinku soo dhaweynaynaa oo idiin dhignay oo idinka sugaynaa oo idinka rajaynaynaa insha allah gogashaa nabadeed waa idin salaamayaa mar labaad salaandii ramaan salaamayaa tolka iyo guurtida iyo cid walba inay macnaha baaq iyaga soo ajiibtaan rajaynaa insha allah sidaas shidkan uga soo qabsheenna waad ku mahadsantihiin marka labaad sida odayaasha hore sheegeen waxaa la isugu yimi beesha muuse carre ee ninkaa la magacaabay uu ka baxay oo sida qaladkaa u dhintay yaa waxaa la guddoonsaday in tacsi loo diro in baaq nabadeed loo diro iyaga iyo wixii kale ee dadka kale maqlaya ama salaadiinta reeraha kaleba ha ahaato ama xukuumadda somalilan mid kastaba ha ahaatee wixii hawshaa wax ka gala mid nabadgelyo iyo mid wax ka qaybsi mid walba baaqan waanu u soo diraynaa ujeeddada iyaduna waxa weeye beesha ninkaasu ka dhintay ama guud ha ahaato muuse carre ama gaar jife ahaan ha ahaato yaanu u diraynaa baaqan nabadeed baaqan tacsiyadeed baaqan gogol aanu u fidinay hadday wax raagaan markii horeba waan ka xunnahay wixii raagsanyaa in badanna hawshan waanu wadnay wakhtigeedii hore hadday naga yar mataqaanaa durugtay raalli baa laga ahaanaya waynu ognahay dil loo bogaaba meel laba kama dhaco soomaalida iyo dunida kaleba sidaasay isugu dhammaatay dilkaa khaldan bay isugu dhammaatay innaga soomaaliyeedda waad idinka waraysaan waxa laala wixii dhacdooyinkaasana waxbaa laga qaybsanayay qaladna qalad laguma saxo qaladka halkaa ka dhacay beel ahaan annagaa leh nuur axmed baa leh nin qaldan oo nin xuna oo aan lala tashan baana u soo jiiday soomaaliduna waxay ku mahdaadaa riyaqale bahdi nin baa u keena waxaanu idinka codsanaynaa beelay wixii aynu wadaagno isu sheegi mayno hadday dhalyo tahay iyo hadday xidid tahay iyo hadday degmo tahay iyo hadday deegaan tahay iyo hadday kala ceeb la-aan hore tahay mid kastaba ha ahaatee isaga warrami mayno waxaanu idinka codsanaynaa inaad naga aqbashaan gogosha gogoshu meel kale ma taane dhacdadu inkastoo ay meel talaax ka shaysa ka dhacday halkanay u soo durugtay meeshan aanu idinkala hadlaynaa beel ahaan waa laascaanood gogoshuna laascaanood bay taallaa naga aqbala oo naga ajiiba oo noo kaalada oo qalad laguma saxo haddaanu annagu markii hore qaldanno ninbaasi uu qaladka noo keenay annagaa dee u waxgala annagaa naloo aanaynayaa annagaa u odayaala talow haddaanu qaldannay oo midbaasi qaladka noo keenay idinku ha nala qaldamina oo ha nala qaybsanina qaladka ha nala qaybsanina noo kaalada nala hadla na xukunta diyaar baanu idinnahay halkan odayaal badan iyo rag badan baa isugu yimi xaggaa aad joogtaana rag badan baa jooga oo madaxa oo kuwa somalilanah oo kuwa cuqaalah oo kuwa isima ah kulligeedba waxaanu diyaar u nahay in wax qayb la isugu yimaado galabta sidan aanu usoo baanu waa idin salaamaynaa meesha ama muuse carre ha ahaato salaadiinta meel walba tagta ee wax ka qaybisa ee dhacdooyinka haddii laba qolo ay wax isku qabtaan dhex taga
maamulka iyo wasiirada iyo ka Soomaaliland haddii qalad meel ka yimaado aadaha oo u taga oo nabadgelyo kaga baaqa intaba gogashaan u fidinayna mid walba marti baan uga nahay inayna aqbalaan maamulka Soomaaliland haddeerba waxay joogaan sida wasiirada iyo wasiirada dakhliga iyo ceelaf weyn bay joogaan nabadayn bay u joogaan hanaloo ku yimaado nabadaynta hanaloo ku yimaado wixii qalada xukunka iyo salaadinta iyo qoyska mid walba hanala ka qabto haddii nala qasinayo iyo haddii qaar aan waxba geysanba la laynayo ama loo xiray wax walba maanta diyaar baanu nahay salaamu calaykum